goobtan in joogna waxa la dhahaa Karin Heegan waxay ka tirsan tahay degmada Laas Qoray ee gobolweynaha Sanaag waa degel archaeological site ama dhulka taariikhdii hore la deganaan jiray waxaan aaminsanahay inay ahayd dhulkii ay Soomaalidii hore joogi jirtay Soomaalidu mararka qaarkood waxay dhahaan faraacinta ka soo jeeda laakiin anigu waxaan leeyahay faraacinta ayaa Soomaali ka soo jeeda godkan wuxuu ka turjumayaa habdhawleedkii dadkii waqtiga noolaa xoolihii ay dhaqanayeen deegaanka ay ku noolaayeen iyo bey'adooda si ay ahayd heerka cilmigoodu gaarsiisan yahay inay qoraal iyo xarab iyo sawir sameeyaan iyagoo noloshooda turjumaad ka bixinaya agabka iyo qalabka isticmaalayeen turjumaad ka bixinaya marka waa dad ilbax ahaa oo wax garanayay oo aan taariikhdooda aynaan dib haddaba u guran bayn aan ku tilmaami karaa deegaankan deegaano la mid ah iyo godkan godad la mid ah ama archaeology site-kan dhul la mid ah ayaa laga helayaa gobolka Sanaag bari soco ilaa iyo Boorame oo waqooyi galbeed degaan ama awdal arrintaasi waxay u baahan tahay dad archaeologistayaal ah oo isu tago cilmi baaris dhaba ka sameeya taariikhda tan Soomaalida ee la lumiyay ee marna lagu darayo faraacinta marna meel kale la geenayo haddarto hawlo kale ma jirtay daawi u noqonaysa Soomaalidu iyaga laga farqay dadka noocaas bay ahaayeen deegaanka iyaga ku noolaa iyagay noqonaysaa markaa sida taariikhda ay ku hayno in dadkani ka tageen marka taariikhdeeni in la ilaaliyo la soo celiyo deegaanka ma soo haray deegaanka sida uu ilaashan yahay ragga odayaasha ay noogu sheegeen anna aan waxa hadii abka soo gaarka warka ku hayay waxa jira intaas oo god loomida insha Allah ta'ala way tagi doonaa dadka khibrada ah ee takhasuska gaar ku ah archaeology iyo dadkeena ka agdhow ee cilmiga ku dhow ee deegaanka ka warhaya waxay noqonaysaa in la iskaashado oo cilmi baaris dhameystiran la sameeyo si qurux badan oo cilmi ku qotontana loo daafuro waxaanu joognaa halkii looda iyo riyo ay ku sawiraayeen waxaana u malaynayaa dee kolley taariikh yar ma aha waa ummadii hore sawiray dhigeen ilaa 400 oo sano waa ka badan tahay taariikhdeedu meeshan waana godad la ilaaliyo oo la ilaasho weeye waana godka taariikhda iyo taariikha ka horeeyaba soo jireenaha waa deegaan taariikhi ah oo aasaar badan ay ka muuqato aasaartaasoo xayawaanaad badan lo fardo maxaan ku idhahdaa riyo geel adigu xoolaha aynu dhaqanno badankooda ku sawiran yihiin iyo waxyaalo kale aanan garanayn marka kolley intaanu annagu ka warhayno godkani oga taariikhdu si fog tahay waa dhulka la ilaaliyo oo aasaarta gobolka Sanaag meelaha ugu muhiimsan oo taariikhda leh runtii waana taariikh qarniyo soo jirtay la kala dhaxlayay aniguna waxaan ka mid ahay dadkaas dhaxalka soo dhaxlayo taariikhda